بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa magaalada Minneapolis gaar ahaan jidka 24ka iyo 13ka meesha iska gooyaan moolka 24ka agtiisa waxaa isku toogtay dhalinyaro Soomaali ah hal wiil Soomaali ah ayaa meesha ku geeriyooday saddex qof ayaa la sheegayaa marka waxaan joognaa hadda goobtii toogashadu ay ka dhacday ama dilku uu ka dhacay weli waxaa socda baaritaankii waa arrin aad loola yaabo in isdilkii dhalinyarada uu dib u soo noqday meeshaan hadda u jeedaan waa meesha dembiga uu ka dhacay waa laba meel oo kala duwan waa xarunta White House la dhaho horteeda xarunta White House la dhaho horteeda way 13ka iyo 24ka ku taala meeshaas waa meeshuu dilka loogu geystay wiilka Soomaaliga ah ciidankan ayaa ilaalinaya waxaa kaloo jira hadda idin wada meel kale laba meel oo isku xigta ayay toogashadu ka dhacday ciidankii booliiska ciidankii sheriffka iyo ciidankii armiga National Guardka ayaa meesha jooga dermiga uu ka dhacay ama dilka loogu geystay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ilaa hadda la xaqiijiyay hal mid inuu geeriyooday hadda waxaa u socdaa meesha labaad ee dilka iyo dembiga uu ka dhacay waa dadkii xaafadda deganaa oo soo baxay oo iyagu isku dayay inay ogaadaan wixii dhacay waxaa hadda u socdaa meeshii labaad ee uu dembigu ka dhacay oo iyadana xiran marka waa wax aad looga xumaado waaye waxa meesha ka dhacay oo hadda aan tusaayo guud ahaan sawirradii meeshii hore ayaan hadda sawirrada ka soo qaaday waxaan u socdaa meeshii labaad saddex wiil waa la saddex waa la xagga waa crime scene waaye saddex waa dhaheen meeshana crime scene labadaba saddex waa dhaheen ha laakiin mid ay xaqiijiyeen dhintaa marka meeshana hadana crime scene kala rabeenaa soo sawir waxba ma yaalo labadaba waa crime scene waxa la sugayaa dadkii baari lahaa ha si wax u dhaceen okay thank you hadda waa warbaahintii miiriyada waraysiga ayaa hadda socda Hey, how are you? Good. How are you? I'm well. How are you, sir? Good. Tusumo Times, Somali newspaper. Fantastic. Yeah. Come on in. Yeah, I'm here. Come on in. You're welcome. Okay, thank you. Good guy. Good guy. He's forgotten more about homicide than most people will ever know. So I'm still learning everyone here. no. He escorted you good. Okay. All right. I'm glad you would look on where they're rolling. Oh my gosh, absolutely. Sorry, I normally ask. Good for white balance? On his phone. No one. hadda waxaan sugaynaa
war-saxaafadeed ciidanka booliiska magaalada Minneapolis ay bixinayaan ee ka warramayaan wixii dhacay iyo sida wax u dhaceen. John Elder, John Elder, ELDER, Director of Communications, Minneapolis Police Department, Office of Public Information Officer. Just before 10 p.m. on Wednesday evening, Minneapolis Police received a ShotSpotter activation for shots fired in the area of South 14th Avenue and East 24th Street. While en route to the call, they was updated to a shooting with 2 victims. Officers arrived, located one adult male with a gunshot wound with grave injuries. Approximately a block and a half away, they found another adult male with non-life-threatening injuries. The suspects fled prior to arrival. Preliminary investigation yields that there was a dispute between a number of parties. Gunshots rang out. The suspects fled prior to officers' arrival. One victim with the grave injuries fell to the ground while the other victim fled. At this time, the Minneapolis Police Department Crime Lab is en route to the scene to process it. Investigators are canvassing the area. Officers who responded have made a number of conversations with people that were in the area at the time and are gathering information. The decedent's information, identity, nature and cause of death will be released by the medical examiner, and we're asking anyone with information to please contact Crime Stoppers of Minnesota. So as of right now, all we know is it was 2 males. We don't know their race, age, or anything like that. We have 3 males that are involved in this incident. We have the 2 victims and the suspect. We do know that the 2 victims are adults. The decedent is believed to be in his 20s. The other victim is considerably older, and that's the information we have at this time. I do not have race. I noticed that this expands a couple blocks around this area. Can you talk to me about what's taking place behind us here? Absolutely. That's where the other victim was found with a non-life-threatening gunshot. So what we've done is we have cordoned off a large area to ensure that we are able to look for any evidence that may have been dropped or anything that we need to see for the path between where the shooting occurred and where that last victim was located. Is there any immediate threat to the folks that live in this area? This is very residential out here. There's no indication that this, in fact, was a random incident. The individuals that got into the disagreement appear to certainly know each other, and so there's no threat believed to be to the neighbors. Is this neighborhood on lockdown right now, or? No. So three people involved. Well, we know that there are 3 people that we know of. We have the 1 shooter and the 2 victims. We don't know what part any of those individuals played. And the suspect is in custody? No, we have no one in custody at this time. Okay. Suspects fled prior to officers' arrival. Right. Okay. So the neighborhood should not be worried about any retaliation or anything at this time. That we have no reason to believe at this time that there's a threat to public safety. To the public safety, okay. Thank you. Okay. I'm good. Okay. Anything else? So what will you like to tell the public? Anyone who may have information? Anyone with information is asked to please call Crime Stoppers of Minnesota. People who do provide information, anonymous tips through Crime Stoppers, if that leads to an arrest and conviction, may be eligible for a financial reward. And again, this is all anonymous. We never know who that person is. At this time, we don't know the ethnicity or the identity of the victims. We are not allowed to, by state press. law, Okay. release the information on the victim. Okay, thank you. You bet. Thank you, Elder. Thank you, Elder. That's great to see you. And Thank you for being here. war-saxaafadeed waa maqlayseen 3 qof ayaa la sheegay inay arrinta ku lug lahaayeen. 1 qof ayaa dhintay oo hadda meeshan waxaa ka socda waa meeshii qofka uu ku dhintay baaritaankii ayaa weli ka socda oo la baarayo. Area-da dhan ayaa la xiray waxaana weli socda baaritaankii waa meeshii qofka uu ku dhintay. Meeshii hore aad intusay oo dhankan kale ah qof ayaa isagana dhaawac ah ayaa laga helay dhaawiciisa. Marka qofka dhintay waa meesha hadda ka soo dhaqaaqay. Qofka dhaawac ahna wuxuu yaalaa maaragtay meeshii hore aad u jeedaan nalalku ay ka shidan yihiin booliiska ay joogaan
wixii ku soo kordha dilkan waan la soo socodsiin doonaa waa arrin hadda dhacday waana maaragtay waa breaking news weeye waa arrin ama news ama warbixin degdeg ah weeye waxa hadda maaragtay sida la sheegay weli ma xaqiijinin wiil Soomaaliya ayaa dhintay mid kalena waa dhaawac saddexdii qof ee ku lug lahaana maaragtay iyaguna waa la raadinayaa areada weli baaritaanka ayaa ka socda ciidan badan booliis badan oo sheriffka Minneapolis Police iyo National Guardka ayaa meeshii jooga arrintan ayaga gacanta ku haya wixii ka soo kordhana waa la soo socodsiinayaa waa Cabdiraxmaan Mukhtaar Tusmo Times waa 24ka intaana Bloomington la gaarin waa maaragtay 14ka iyo 15ka iyo 14ka inta u dhaxaysa 24ka jidka 15 Avenue iyo 14 Avenue inta u dhaxaysa ayaa wiilka lagu dilay ka kalena waxa dhaawiciisa laga helay 13ka iyo 24ka gaar ahaan xarunta la yiraahdo Phillips Community Center ama White House ka horteeda waa maasantiin